بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhowaada barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka barnaamijka qaybtan daawadayaal waxaynu ku eegi doonaa haddii allaha awoodda leh uu raali ka noqdo dowladda ethoobiya oo warkii ugu adkaa ka soo saartay qorshaha la sheegay in looga baahan yahay inay la shaqeyso guddiga qaramada midoobay u qaabilsan baaritaanka xadgudubyada la sheegay inay ka dhaceen gobolka tigreega maraykanka oo war xasaasi ah isna arrimahan ka soo saaray iyo xogo kale ayaan idiin haynaa mar kale soo dhowaada waa 18 bisha December sanadka 2021 daawaday haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe noo saar haddii aad dhanka Facebook naga daawanayso waxaan kaa codsanaynaa muuqaalkan inaad noo sii share garayso mahadsanid barnaamijkeena ayaynu guda galeynaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inay diiday inay la shaqeyso guddiga ay qaramada midoobay ansixisay ee baarista xadgudubyada ka dhacay gobolka Tigray waqooyiga waddankaas iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankana ay walaac ka muujisay warbixinada xadgudubyada cusub ee ciidamada Amxaarada ay u geysteen dadka gobolka Tigreega ku sugan wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Addis Ababa ay aad uga xun tahay iyadoo mar kale la arkay adeegsiga golaha xuquuqul insaanka oo qaarkood ay u adeegsadaan qorshahooda siyaasadeed waxay intaasi ku dartay in ansixinta golaha xuquuqul insaanka ee ah in la sameeyo guddi soo baara xadgudubyada lagu eedeeyay Tigreega ay tahay isku day lagu raadinayo hab kale oo lagu farageliyo arrimaha gudaha ee dal madax bannaan mana jirto bay tiri wasaaraddu wax ujeeddo ah oo aan ka ahayn in lagu sii xumeeyo xaaladda waddanka Ethiopia la shaqeyn mayso guddiga lagu soo rogay ogolaansho ka soo horjeeda iyada ayay wasaaraddu hadalkeeda raacisay waxaana wasaaraddu ay xaqiijinaysaa baa la yiri inay ka go'an tahay inay sii wado dadaalkeeda ku aadan gudashada waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah ee ixtiraamka iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha shalayto golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in la furo baaritaan caalami ah oo lagu ogaanayo xadgudubyada xuquuqul insaanka ah ee lagu tuhmayo Ethiopia golahu wuxuu ugu baaqay dhinacyada isku haya waqooyiga Ethiopia inay joojiyaan dagaalka iyagoo cambaareeyay hadallada naceebka ah iyo sidoo kale horinta colaadaha ee ay wadaan maamulada federaalka iyo kuwa deegaanka golahu oo ka kooban 47 dal ayaa u codeeyay qaraar qabyo ah oo lagu dhisayo guddi caalami ah oo baaritaan ka sameeya khubarada arrimaha xuquuqul insaanka waxaana ogolaaday 21 waddan 15 dal ayaa diiday 11 kalena waa ay ka aamuseen go'aankan ayaa lagu sheegay in guddigan cusub uu ka koobnaado 3 khabiir oo ku xeel dheer arrimaha xuquuqul insaanka kuwaas oo dhammaantood uu soo magacaabi doono gudoomiyaha golaha xuquuqul insaanka 3 November ee ina dhaaftay warbixin ay si wada jir ah u soo saareen guddiga xuquuqul insaanka Ethiopia iyo xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhammaan dhinacyada isku haya dalkan ku yaala geeska Afrika ay galeen xadgudubyo kuwaas oo qaarkood laga yaabo in ay noqdaan dambiyo dagaal iyo sidoo kale dambiyo ka dhana bini'aadanimada dhankeedana Nada Al-Nashif ku-xigeenka komishanka xuquuqul insaanka waxa ay sheegtay inay suuragal tahay in ka badan 400 oo kun oo qof oo Tigray ah ay ku nool yihiin xaalado macluusha oo kale ah Al-Nashif ayaa intaasi ku dartay mar khudbad ay ka jeedinaysay golaha intani ay sabab u tahay xaqiiqda ah in gargaar xadidan oo kaliya loo ogolaaday in uu galo gobolka tan iyo bishii June ee ina soo dhaaftay dhankeedana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay wararka cusub ee aan la xaqiijin ee sheegaya in ciidamada Amxaaradu ay dad badan xirxireen dileen oo ay ceeriyeen kuwaas oo ku nool gobolka galbeedka ku yaala wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ugu baaqday madaxda Amxaarada in ay ka tanaasulaan xadgudubyada ay ku hayaan dadka rayidka ah waxayna dib u soo cusboonaysiisay baaqi Eritrea ee ah inay ciidamadeeda kala baxdo Ethiopia waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay ku boorinaysaa baa la yiri mas'uuliyiinta Ethiopia inay baaraan warbixinadan si loo ogaado xaqiiqdooda iyo sidoo kale inay u hoggaansamaan habraacyo dhammaystiran oo hufan si loola xisaabtamo kuwa mas'uulka ka ah waxay ugu baaqday dhammaan kooxaha hubaysan ee Ethiopia inay ka tanaasulaan oo ay joojiyaan xadgudubyada ka dhanka ah dadka rayidka ah waxayna ku celisay baaqeeda ku aadan joojinta colaadda isla markaana si degdeg ah loo joojiyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha waxa ay sidoo kale ku baaqday wada xaajood bilaa shuruud ah gargaar bini'aadanimo oo aan la carqaladeen iyo in la bilaabo wada hadal qaran oo loo dhan yahay
dagaal ayaa ka qarxay Ethiopia bishii November 2020 markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu u diray ciidamo gobolka Tigreega si ay halkaasi uga saaraan maamulkii gobolkaasi hayay kadib markii lagu eedeeyay inay weerareen xero ciidan oo halkaasi ku taalay. Laakiin kadib markii ay jabhadda dib u soo rogaal celiyeen waxa ay gaareen guulo la yaab leh iyaga oo dib ula wareegay gacan ku haynta inta badan Tigray bishii June ee la soo dhaafay ka hor inta aanay u gudbin gobolada deriska ah Anfarta iyo Amxaarada. Cabsida laga qabo faragelinta mucaaradka ee caasimadda Addis Ababa ayaa keentay in dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska ay muwaadiniintooda ugu baaqaan in sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan Ethiopia, inkastoo xukuumadda Abiy Ahmed ay xaqiijisay in magaaladu ay nabad tahay. Colaadda ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof iyadoo ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof, waxaana sidoo kale la soo sheegayaa in 100,000 oo qofna ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan macluul. Dagaalada Ethiopia ayaa ah wili kuwa soconaya iyadoo wararkii ugu dambeeyay dagaaladana ay sheegayaan in ciidamada Ethiopia ay ku sii siqayaan aagag hor leh oo ay ku sugan yihiin kuwa Tigreega. Waxaana maanta dhacay dagaaladii ugu waaweynaa diyaaradaha dagaalka ayaa sidoo kale duqeynaya. Magaalada Alamata ee Tigreega ayaa lagu soo waramayaa duqeynta ugu xoogan inay ku socoto halkaas oo warbaahinta Tigreega ay soo bandhigeen 10 qof oo rayid ah, haween iyo carruur ay ku jiraan oo duqeyntaasi waxyeelo ay ka soo gaartay. Dowladda Ethiopia waxa ay sheegaysaa diyaaradaheeda meelaha ay bartilmaameedsanayaan inay yihiin kuwa xadidan oo aan lala eeganin goobaha shacabka, balse TPLF ay isku dayayaan in ay iyagu shacabka si awooda ku geeyaan goobaha ay ku sugan yihiin si ay hadhow u soo bandhigaan. Sidoo kale TPLF waxaa lagu eedeynayaa in ay adeegsanayso xarumaha danta guud sida isbitaalada, xarumaha cibaadada iyo meelaha waxbarashada ama goobaha waxbarashada, halkaas oo gambaad ay ka dhiganayaan islamarkaana hubkooda iyo saanadahooda kale ay geenayaan si diyaaraduhu aanay u bartilmaameedsan. Ethiopia xaaladeedu meel adag ayay maraysaa, lamana oga sida ay xaaladda ku dambeyn doonto, laakiin falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in dagaalada haddii ay sidan kusii socdaan TPLF dib loo geyn doono gobolka Tigreega islamarkaana xaaladdu ay noqon doonto mid isbedesha. Haddaba daawad, adigu maxay kula tahay aragtidaada? Fadlan qaybta hoose commentiga inoogu reeb. Barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka idinkaga imaanaya Markhaati TV wanaga intaas. Barnaamijka midka xigeentaan ku kulmi doona nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.